الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa darsigeena koob iyo tobnaad oo ka mid ah duruusta aan kaga hadlaynay manhajka aan ku sharxaynay. darsigan wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaan manhajka dacwada ama manhajka waxbedelidda. saara socotaa markii aan manhajka ka soo hadlaynay muqaddimadiisa waxaan sheegay manhajka waa saddex qaybood. mid yani ku tacalluqa xagga caqiidada oo loo yaqaano المنهج العقدي، يمد كتعلقه حق فهم كدينته سيده لو فهم اي دينته ولو يقانو منهج الفهمي اما المنهج الاستدلالي. يمد لحريره منهج كدعوه لو مراهيو iyo sida wadada dadka wanaaga loogu bedelayo xaqiisa. waa saddexdaas. marka maanta kii saddexaad ayaa meeshan nooga bilaabanaya biidnillaahi tacaala, waana sharxi doonaa. runtii walaalayaal saala socotaan qofka muslimka ah sida caqiidadiisa loo baahan yahay inuu saxnaato, sida loo baahan yahay in manhajkiisa fahamka diinta uu saxnaado, saasoo kale ayaa loo baahan yahay in manhajkiisa dacwada uu saxnaado. waa laga maarmaan, sababtoo ah waxaa weeye yani kulligoodba diintay ka mid yihiin. maxaa yeelay diinta islaamku waa diin caqiido, waa diin cibaado, waa diin akhlaaq, waa diin mucaamalo. sida lafteeda loo fidinayo lafteedana diinta ka mid tahay. maxaa yeelay waxaa la oran karaa mabda kasta sida loo fidinayo isaga sheega iyo wadada loo marayo. marka diinta islaamku sida loo fidinayo, qofka fidinaya sifooyinka looga baahan yahay, wadada uu marayo, dadku uu la hadlayo, sida uu la tacaamulayo, wax oo dhanba diinta lafteeda ay sheegaysa. marka diinta islaamku sida loo fidinayo meel kale looga keeni maaye, ayada ayaa loogu noqonayaa, ayada ayaa runtii maarad looga faa'iideysanaya. midda koobaad wuxuu noo faa'iideeyay manhajkan, wuxuu noo faa'iideynayaa, una barayaa dacwada la wado gaayada ay leedahay maxay tahay. waa afar baa la yidhi. mid waxaa weeye hidaayat innaas, dadka oo la hanuuniyo oo wanaagga loo tilmaamo oo wanaagga qaata. midda labaad waxaa weeyaan iqaamat alxuja cala almucaanidiin, dadka mucaanidiinta oo aan khayrka doonaynin in xujada lagu oogo oo warka loo cadeeyo oo halkaas ay ku xujo beelaan weeye. saddexaad waxaa weeye in ammaanadii ilaahayna saaray subxaana wa tacaala aan gudanayno oo diintan ummaddan mas-uul bay ka tahay in la fahmo diintan, in dadka la gaarsiiyo diintan. nebi kale oo hadda soo baxaya ma laha. marka ammaanadii diinta gudbinteeda ahayd aan gudanno oo halkaas xilkaas aan ka soo baxno ayadana waa gaayo weeyaan. afraad waxaa weeye in kelimada ilaahay iyo diinta ilaahay kor noqoto, ayaduna waa gaayo ka mid ah gaayaadka dacwada. dacwadu thimaar bay leedahay, thimaarteedu adduunna waa leedahay, aakhirana waa leedahay. xagga adduunka waxaa weeye waa in dad muslimiin oo wanaagsan la helo, afraad muslimiin in la helo,
qoys muslimiina in la helo bulsho muslimiina in la helo ummad muslima in la helo baa ka ratimaysa oo wanaagsan oo diintii taqaana oo ku amal falaysa marka inta helaana hadda cizi bay helahayaan sharaf bay helahayaan maaragtay awood bay helahayaan taas waa xaqii thimaartii adduunka weeyaan thimaarta aakhiro hadda in qofkii uu jannada ilaahay helo subxaanahu wa tacaala uu ku liibaano maaragtay fawskaas iyo falaaxa wanaagsan baa ka ratimaysa maxaa yeelay dacwadan haddii la guto kii gutaan ajir buu ka helayaa kii ka faa'iidaysto ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala oo xaqii ilaahay gutanasna jannu ku helayaa martaasna xagga aakhirada weeyaan manhajkeena dacwada aan u marayno oo ummadda muslimka inaan wax ku soo kordhino aan doonayno ama ummado kale aan wax gaarsiinayno mid ay noqotoba manhajkeena dacwada iyo manhajkeena bedelidda la bedelayo dadka xagga wanaaga loo bedelayaa guud ahaan waa manhajkii nabiga sallallahu alayhi wasallam weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam manhajka asaga bilaabay dacwo bilaabay dad buu soo saaray ummad buu bedelay ummad buu sameeyay dawlad buu sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwada koob buu ka bilaabay ilaa uu dawlad dhisay maraaxil badan buu maray marka dadka sida loo dhiso dacwada sida loo fidiyo ummadda sida ummad loo sameeyo sida bulsho loo abuuro sida dadka quluubtooda iyo nufuustooda loo bedelo sida dadka maskaxdooda loo taasiiriyo waxa soo dhanba nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa maray koob asaga maray sifir buu ka bilaabay ilaa uu heerka sare ka gaaray marka in asaga looga daydo ayaa loo baahan yahay gaar ahaan dadka salafiyiinta waxa loo baahan inay fahmaan nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii aqeedadiisa aan qaadanayno hadii cibaadadiisi aan ku dayanayno in la qaato akhlaaqdiisa aan jecelnahay sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadiisa in lagu daydaa waa shay laga maarmaan maxaa yeelay dacwada diintan sida loo fidiyay ma kala haraan laba shay isku xiran weey marka taas ayaa anagu insha Allah taala guud ahaan ku soconaynaa annaga oo mafaahiimtan iyo nuqdooyinka soo socda maskaxda ku hayna oo maaragtay si gaar ah u tilmaamayna mid waxa weeyaan annagu meesha ka shaqeynayno oo aan ka fidinayna dacwada horta waa inaan naqaano oo aan fahamsanahay dacwadeena meesha asaaskeeda ay ku wajahan tahay kana bilaabatay culayskana saarayso ummadda muslimka weeyaan waa shacabka Soomaaliyeed oo muslimka shacabka marka muslimka Soomaaliga ah inuu muslim yahay oo maaragtay islaamnimadaas lagu ixtiraamo aragti gaar ah iyo macno gaar ah sameynaysa maxaa yeelay qof wadan gaalo ka dhex shaqeynaya oo dacwo ka fidinaya sida xaalkiisu noqonayo iyo sidii uu la tacaamulayo iyo qof muslim ka dhex shaqeynaya isku dhaqaaq maaha isku xil maaha isku maaragtay isku mucaamalo maaha isku ahkaam maaha marka shacabkan waa shacab muslim oo Soomaaliyeed weeye marka in asaga la saxo u baahan yahay aqeedadiisa in loo saxo loo kordhiyo la fahamsiiyo in cibaadadiisa la fahamsiiyo loo saxo in akhlaaqda fiican loogu yeero in suluugiisa la hagaajiyo loo baahan yahay in noloshiisa nidaamkeeda oo runtii lagu cayaaray oo diinta laga fogeeyay in nolosha diinta loo soo cesho ayaa loo baahan yahay marka mid waa laga maarmaan oo waxa weeyaan taasuna ceeb maaha shacab muslim weeyaan laakiin sida adduunkiisuba u baaba'san yahay ay fuqara u yihiin oo masaakiin u yihiin oo caafimaadkooda kala dhiman yahay waxa barasho kala dhiman tahay sidoo kale diinkooda asna waa kala dhiman yahay oo maaragtay dhaawac baa soo gaaray sida adduunkeenu u dayacan yahay saas oo kale baa diinteenu u dayacan tahay marka dadka diintooda dayacan ama diintooda wax ka maqan yihiin in loo fahmo in la gaalaysiinayo ma aha dadku maaragtay diinta fahamkeeda diinta cilmigeeda diinta amalkeedu wax dhamaada oo la soo afjaro ma aha marka in dadka muslimiinta Soomaaliyeed diintooda ay maaragtay cilmigeeda loo siyaadiyo amalkooda loo siyaadiyo noloshooda diinta aad loogu xiro horta waa laga maarmaan marka meeshan ka shaqeynayna inaan fahamsanahay waa muhiim maxaa yeelay ahkaam ba ka ratimaysa mid labaad waxa weeyaan waa aaminsanahay in ummadda la bedelo waa shay waqti u baahan walidaalika tadarrujka in waxa la aayarsado oo la tartiibsado
oo ahdaafta si aayar ay kugu soo gaartaahay waa sunno kowni ah weeyaan waana sunno sharci ah maxaa yeelay wax kastoo kobcahaya waday maraan wadada ay marahayaana wada la bedeli karo ma aha nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadu bilaabay isla markiiba dacwadii ma faafin dadkii ma wada qaadan waqti bay ku qaadatay aayar baa loo soo galgalahayay waa la dhibay waa jiitantay ilaa aakhirihi marka wadadaas dheer oo tartiibta ah oo tadarrujka ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu qaaday wado cid kale looga naxariisanaya ma aha asagaa dhibtooday waa dhibtoonaysaa asagaa wax sugay adna waa sugaysaa asaga ayaa laga soo daahay adna waa laga soo daahaya marka wadada dheer oo tadarrujka ah oo aayarka ah waa wado in la maro ay laga marmaan tahay saddexaad waxa weeye inaan ku dhaqmayno aan ka faa'iideysanayno wasaa'isha iyo wadooyinka mashruuca ah oo ilaahay noo jideeyey si ahdaafta loo gaaro si diinta loo fidiyo wixii ilaahay jideeyey oo ilaahay kuu baneeyey kuna hor yaalla oo mutaax ku ah oo awoodeeda ah leedahay ayada waa samaynaysaa aan hadal baa lagu baneeyey wax qorid baa lagu baneeyey warbaahinta ayaa galaysaa tacliinta ayaa galaysaa dadka la fariisanaysaa kutub baa akhrinaysaa meel kasta oo ilaahay kuu baneeyey waa ka faa'iideysanaysaa adigoo axkaamteeda iyo aadaabteeda ilaalinaya midda afraad waxaa weeye waxaan anagu aaminsanahay oo aan aragnaa ummaddu inay hoos u dhacdo iyo inay kor u kacdo waxa ay ku xiran tahay waxaa weeye inta ay diinta u dhowdahay ama ay ka fog tahay weeye taas baa keenaysa marka horukac haddii la doonaayo xagga diinta ayuu jiraa halkaas laga gaarayaa marka markii diinta laga fogaaday diinta laga dheeraaday dadka muslimiinta way burbureen awoodii baa burburtay maaragtay dhaqaalihii baa burburay isku xirnaantii baa burburtay izigii baa la waayey dulli baa la galay marka haddii la doonayo in ummaddu ay soo kacdo waa in diinta loo dhowaado oo la qaato weeyaan midda shanaad waxaa weeye waa inaan fahamsanaanaa ummadda soomaaliyeed ummadda muslimka guud ahaan gaar ahaan soomaalida amba iska iraahe dhibka haysta dhexdooda ayuu ka jiraa asaasku halkaas weeye waxaana haysta annaga isku dhignay annaga ayaa maar diinta ka fogaanshahan ka fogaanay cilmigeeda nagu yar yahay amalkeeda nagu yar yahay waxaasoo dhan waxa weeyaan waa sababta mushkiladda aan daaweynayno asaaskeeda waa inaan fahamsannahay mushkiladda aan daaweynayno asaaskeedu waxa weeyaan waa muslimiinta dhexdooda weeye ayaga ayaa dacfiga leh ayaga ayaa kala daadsanaanta leh ayaga ayaa dembiga badan maaragtay leh ilaahi subxaana wa tacaala markii qaswata uxud uu ka hadlaayay waa isagii yidhi qul huwa min cindi anfusikum wixii ka dhacay meesha 70 saxaabaha la laayay nabi sallallahu alayhi wasallam waa la dhaawacay meesha dhib weyn baa ka dhacay dhibka weyn dadkii geystay waa la garanayaa waxa ay sameeyeen ee dadkay ahaayeen quraysh bay ahayd Khalid bin Walid oo tab dagaal khatar sameeyay ahayd laakiin intaas oo dhan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma sheegin waxna kama soo qaadin wuxuu leeyahay sababta waxa ka dhacay meesha oo musiibo ah xaqiina weeye ayaa la leeyahay marka taas waa qaacida caama weeyaan muslimiinta mushkiladooda xaqooda ka iimaanaysa macsidooda dambigooda kala daadsanaantooda anaguna taasan daaweynayna midda lixaad waxa weeye waa inaan fahamsanahay awoodda ayaa wax kasta ku xiran yihiin wax ilaahayna amraayo diintan xaq ay nagu leedahay dacwada aan fidinaynahay awooddeena ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu kallifay wax awooddeena ka baxsan diintu nama amrin ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana naguma kallifin toddobaad waxa weeyaan wax kasta munaasabadooda ay leeyihiin waqtigooda ayay leeyihiin makaankooda ayay leeyihiin ayadana waxa weeyaan si loo xadido hadda maxaa munaasab ah hadda maxaan samaynaa see yeelnaa waa in loo noqdaa shareecada waa in loo noqdaa culummada ayaga ayaa noo xadidaya waxa loo yaqaano waajib alwaqti waqtiga hadda taagan saacadda hadda taagan maalmaha hadda la jooga wax kasta oo dhaca waxooda munaasabka ah waa in culummada iyo shareecada loo noqdaa midda sideed waxa weeyaan waa inaan fahamsanahay waajibkana saaran annaga waajibkana saaran waa dacwada waa wax sheega waa naseexada waa wanaag laga shaqeeyo weeye
taasna ka rabaa laakiin in laga yeelo oo sidii aad rabtay ay ku noqoto mid anagu xilkeeda ma lihin namana saarna dadka la hadlayo wax ku fidinayno xagooda laga rabaa marka anaga wixina saaran aan sameeyno ummadda wixii saaran oo ku dadaalaynaa laakiin hadii la waayo in la yiraaho waa la fashilmay oo maaragtay wax kale lagu fakaro sax ma aha maxay yeelay anaga shaqadii dacwada weeyaan waa shaqadii rususha oo ilaahay uu ku lahaa wama ala rusuli illa albalaagul mubiin waa tii oo kale weeyaan waxa loo baahan yahay inaan kala saarno anagoo ducaad ah ama jamaaco dacwadeed ah awood aan leenahay iyo xilkana saaran iyo waxana la ka sugahayo iyo waxa laga sugahayo dawladda muslimka ah in la kala saaro weeyaan dawladda muslimka ah xilka saaran waa culus yahay awood bay leedahay dhaqaalihii bay haysaa wax kasto ummadu lahayd ayada ayaa haysa annagase dacwa ayaa wadnaa anagu jamaaca nahay marka anagu maaragtay dawlad ma nihine ducaad baan nahay oo macnaheedu yahay ducaada awood ay leeyihiin tabartooda iyo waajibka saaran waa baab waajibka dawladda saaran iyo xilka laga sugahayaana ayada laga baahan yahay marka hadii dawladdu ama maaragtay ay ka gaabiyo xilkii saarnaa in anagu aan la wareegno ama anagu aan isku dayno in wixii aan sameeyno khal maaragtay dib baa ka imaan kara marka anagu ma wixii jira baan saxaynaa awoodii jirta baan toosinaynaa in xilka saaran ay gutaan wadadeeda ayaan ku dadaalaynaa laakiin anagu wixii ay lahaayeen anagu aan qaadano oo marka halka isku dhac uu ka yimaado ama isfahmwaa uu ka yimaadaay culays bay leedahay marka dadka muslimiinta oo maamulka haya oo dawladda haya in waajibkooda ay gutaan ayaa loo baahan yahay dadka ducaadana waajibkooda ay gutaan oo marka halka la iskaabo ayaa loo baahan yahay tan kale waxa weeyaan shaqadan wadaynaa waa dacwo shaqo waqti gaar ah lama waa shaqo soconaysa الاستمرار هدين ما ركتي 30 سنة ودني 40 سنة ودني إلى قرن وحودينا إلى ما رد عن هدين دعوة وصونيسا وحده مانع ما وحكستو اللي جارو أما نقال هلا هلو أما مامل هلا هلو وحكستو اللي جاره هي دعوة داس أي كاب هيان ضدكو إله سبحانه وتعالى أضو النقضة أو حق إله اللي قلته هل كاس الله صعده marka awood kasto kugu soo biirtaay in shaqadii ay dhamaatay ma aha macnaheedu dadka qaar ba u fahamsan dacwada la wada macnaheedu waxa weeyaan in dawlad maaragtay la noqdo weey macnaheedu ay ku dhamaatay meeshaas ma aha macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo la helo aduu ama dawlad hel oo maamulka maamul wanaagsan maxaan ku wara ku soo biiray muslimiinta ama dhaqaale hel ama wax kala hel wixii kugu soo biiro awood ah dacwadii awaday iyo hanuunkii awaday iyo qaayadihii aalahayd ayay kaaba hayaane soo afjari mahayaan dadka muslimiinta maantay way kala daadsan yihiin dacfi baa haysta dulli baa haysta laakiin waxa lagu midayn karaa maxay tahay waxa lagu midayn karaa waxa weeyaan waa kelimada tawxiidka oo la fidiyo oo la isla fahmo weeyaan nabi sallallahu alayhi wasallam la raaco weeye magaratay culimada qaar baa waxay yiraahdaan توحيد الكلمة في كلمة التوحيد توحيد الكلمة مسلمين تو هذا الكود مذوبه وجددوده أي مذوده وحي كجرتا في كلمة التوحيد كلمة التوحيد كلقاته مركز توحيد الكلمة في كلمة التوحيد توحيد كاسو لا فهمه او لو دقمه ayaa ummadda midaynaya oo cizigeedu soo celinaya oo tamkiinkii iyo wanaaga la doonayo taas loo gaaraya waxaan kaloo aaminsanahay maadaama meesha ka shaqeynaynahay ay muslimiin ay yihiin oo bulsho muslima ay tahay bulshada muslimka oo la hagaajiyo oo maaragtay maxaan ku yiraahdaa wanaaga xaqiisa u talaabaysa qawaacid bay leedahay qawaacid loo yaqaano qawaacid al-amr bil ma'ruf والنهي عن المنكر تاس الله قاضي أيضا أيها كفلا إن المسلمين تا سيدا هدا أيهين أي كبد شو حق وناقة أبد شو مركا إنت أصلا نقطة أيام كهنا مسكحة أو سجارة أو تلمامنا أو كل جيد واحد يكون نقطة إساء أما يكون صلاة سنة هاي أما أي كان بقاضي إساء منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكل سعودي
ودعوده كفدين هاي ومدة كبد بعدين هاي هي كحرن تهي وحن كجينا ماشي إن شاء الله تعالى وسائل الدعوة والتغيير وسائل الدعوة ذا أنا استعماله إنه ومدة أن كبدله إنه ووحى أن دون إنه وناقل وجاره هي محييهن لبضع ما وسائل لبقى قيبض وأنو قيبين كرنا مدو حاوية وسائل أن دون إنه إن أمضى أن ما ركتي وحى أي هيستان محان كوراها أن أزيادينه ودينت أي هيستان أن سي فهم سينه وحى كم مكان أمضى أن ما ركتي أمضى وحى هيسته إن لو وردييو ما لو بهي هرته ودينت أي هيستان لو وردييو نلاش أي هيستان إيو أمضى شريتان كذا هدوب البره دينتنا بالبريسان مركا وسائش ولا بقى يبود منه وحوية أمضى إن ما ركتي وجود كذا لا إلى شو دينته وحكاه هيسته لو وردييو وامد منه وحوية وحمقان ولا تبهيه إنه مدى الله كانوا ومدى حلوس كرديو أيها ما ركتي أي من دقونيسا marka mid kastaba wasiilooyin gaar ah ayuu maaragtay runtii ay leedahay marka hadda waxaan ka bilaabaynaa midda ah ummadda in waxa ka maqan maaragtay maxaan ku raa loo keeno maxaa lagu gaarayaa ummadda waxa ka maqan waxa lagu gaari karaa dhowrka noqdo koow dadka oo rabbiga subxaanahu wa ta'aala la baro oo dacwada tawxiidka lagu yeero oo tawxiidka aad u fahma marka noocaas leenahay dadku inay gaala yihiin macnaheedu dadku waa muslimiin weeye laakiin waxba ka dhiman qofkuna in wax ka dhimanaadaan ceeb ma aha maxaa yeelay cilmiga waxba ka dhiman amalka waxba ka dhiman heerkii loo baahnaa waxba ka dhiman marka dadka oo tawxiidka aad loo fahamsiiyo oo cilmigiisa la fidiyo oo rabbigooda la baro waa loo baahan yahay dadka oo shirkiga looga digo asna waa shay loo baahan yahay weeye dadka aad loo fahamsiiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam in la raaca inay kamid tahay tawxiidka ay kamid tahay oo tawxiidka ka kooban la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ka kooban muhammad rasuulullah macnaheedu waxa weeye waa nabiga sallallahu alayhi wasallam raacayo weeye waa tawxiidka qaybta labaad marka midaas oo la fidiyo waa muhiim in dadka ummadda muslimiinta ah nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu xiro ahadiistiisa توجيهات كيسا أوامر تيسا سنة ديسا لغو حره داد كان مارت اللوغة ديقو وحيالها بدعادة ودينة اللي سوقرين أيو ودينة أوافق سنين مدى أفراد وحاوية إن علمك الشرعي الله فيديو ودادكو دينة برطان وداد علماء لسو صارو وداد دعادة لسو صارو مدى الشناد وحاوية إن لغو داله تزكية النفوس دادك النفوس تدى الله ظهيرو أخلاق في عن أي برتان أخلاق حن أي كتجان مد اللي حذو حويه قفك مسلم كائن لقرده قف داعية ودين كمسؤول إن دين تنوفذيه ضدك ويرو دين توارديه حلك النوع عاس إلا صارنا ولا يلو باهم حيا قفكو أما الدين تبع وما سوي شيء ده هذو سوي شيء استنى إنه أصله ما أردكو عمل فلكلية بكفهم هي إنه أصله فيديو أما أصله دين توارديه أما الدين ما أردت محن كورها لا الدفاع أما الدين الله فعل الله هيركاس إنه مغيها لينسى تضبط وحويه المجتمع دمان تيس للاحظ له وقولك استحلك صارا لجو براروجيو اللي أجادوا إن دعوته أي عيد كاستأي جاريسو وحمد دعوته إن إمارته كوكوبنتهاي ضد جارة وماركت مجتمع كمذا وإن بدن وبرشلة كمذا ولي أن ليس أرق ودعوته أي سنجارين سيد الله بهنا مركا وإن حب الله له دعوته لجو جارسيو ضد كرمان تود مثلا هذه ما أنت محاضرة لقبته هذا كي تكناي أيها كوي إيمان هي أو كو صفرسين لقيها لكن كان تكناينين أما هرمي جاءها أما تولوين كتشري أما الدين تبع أنكو في عناين ومرها سكفر ديا إن لجارو أو عدكو وجارو أو دعوته أي جارتو شيء لو بهي هوي وحلو بهي هي إن شغل وضنا لازكو ميزان ولا بشقة شقة وحويه إنه مدة لصار نوليه أو خاص لقى صار لسه
oo tawxiidka loo soo saxo oo caqiidada loo soo saxo weeyaan midna waxa weeye in ummadda kor laga waardiyeeyo oo ummadda maaragtay kuwa doonaya in ummadda gaalaysiiyaan ama ummadda akhlaaqdeeda ay ku cayaaraan in laga waardiyeeyo waa loo baahan yahay marka shaqada waardiyeynta ah iyo shaqada soo dhisidda labada shaqo in la isku feer wado ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in mujtamaca muslimka ah lagu qanciyo inay dacwada taageeraan oo ay garab istaagaan waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta aqoon-yahankooda iyo shaqaalahooda in ay maaragtay ay diinta fahmaan oo dad fiican noqdaan qof kastoo meel mas-uul ka ah ama ummadda meel u fadhiya inuu qof fiican u noqdo waa in laga shaqeeyaa shaqaalaha in la hagaajiyo dadka muwadafiinta ah in la hagaajiyo nidaamka tacliinta in la hagaajiyo iyo manaahijta tacliimiga ah iyo muqararaadkeeda in la hagaajiyo in ardadan faraha badan oo jaamacaadka dhiganaya ama iskuullada dhiganaya oo aalaaf mu'allafa ah in tarbiya fiican loo helo oo dad fiican ay noqdaan baa loo baahan yahay in qalabka warbaahinta iyo barnaamijta warbaahinta la hagaajiyo iyadana waa shay laga maarmaana lagana faa'iideysto warbaahinta sidii ummadda loo tawjiihin lahaa maxaa yeelay mar haddii warbaahintu ay khaldan tahay oo aysan wax fiican sheegaynin ummadda maskaxdeeda aad bay u kharimaysaa waxaa loo baahan yahay in bulshada loo adeego oo dhibka laga fududeeyo oo baahidooda wax laga taro oo caafimaadkooda la taakuleeya loo baahan yahay marka khidmat almujtamac jamciyaadka khayriga ah ama dadka ducaadda ah inay ummadda u adeegaan ayaa loo baahan yahay yani dacwo kaliya iyo war kaliya inuu soconayo ma aha ugu dambeyn waxa weeye in loo sacyiyo in wax kasta oo maaragtay la khalday in la islaam gareeyo oo مثلا dhaqaalihii baa la khalday riba la geliyay banki islaami ah iyo dhaqaale islaami la sameeyo loo baahan yahay maaragtay siyaasadda ayaa la khalday garsoorka iyo maxaanku yiraahaa iyo maxkamadaha ayaa qawaaniin xun oo khaladaha taala in marka meel kasta oo diinta laga fogeeyay oo diinta laga saaray oo maaragtay qolo kale ay qaadatay in la soo celiyo loo baahan yahay oo maaragtay dhaqaale islaami ah la keeno siyaasad islaami ah la keeno maaragtay maxkamad islaami ah la keeno waxaas oo dhan waa loo baahan yahay si noloshu biidnillaahi tacaala ay maaragtay u islaam garowdo marka inta waxaan kaga baxaynaa qaybtii ahayd wasaa'isha ummadda maaragtay lagu bedelayo oo xagga wanaagga lagu tallaabsiinayo oo waxa ka maqan insha allahu tacaala loo soo hoynayo insha allah darsiga kale waxaan ku qaadan doonaa wasaa'isha maaragtay ummadda aan ku waardiyeynayno waxa ay haysato oo ama diin ah ama wanaaga wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatuh